aad ayaan ugu faraxsanahay buu yiri in aan dilay dad lagu qiyaasay 48 qof waliba aad ayay u yar yihiin buu yiri hadii aan awoodi lahaa buu yiri waxaan dili lahaa dad intaas ka badan mar labaad mar saddex soo dhawaada saaxiibayaal sida caadada noo ahayd waxaan uga hadli doonaa xalqadan mid kamid ah dhacdooyinkii ugu yaabka badnaa ee ay saxaafadu ka qortay dunida daafeeda asbuucan aan ku jirno ama asbuuci ka horeeyay asbuucan waxaan ka hadli doonaa arrin yaab leh oo ka dhacday wadanka Brazil sanadkii 1995 ayaa booliska wadanka Brazil waxay soo qabteen wiil yar oo dhowr iyo 10 jir ah waxay u soo qabteen yacni dambi yar meel buu wax ka xaday wax saas kala xabsiga ayaa la geeyay laakiin ninkan xabsiga dhexdiisa waxa uu ku noqday muddo dheer kadib nin dhigiicaba oo qaatila oo dilay dad ku dhow 50 qof wiilkii yara 1995 yacni waa 25 sano ka hor meelahaas waa 25 sano ka hor markii xabsiga la geeyay adoo xabsiga markii la geeyay xabsiga ayuu ku sameeyay dambiye yar yara dabadeed xogaa ayaa hadba waxa loo sii dheereeyay muddadii xabsigiisa markii dambe asoo xabsi ku jira ayuu wuxuu ku biiray koox burcad oo xabsiga ku dhex jirtay dabcan xabsiga burcad kooxa ayaa ka jirta oo isxulufaysta koox ayuu ku biiray aduu dambiga ayaa lagu sii siyaadiyay ninkan waxay noqotay in uu xabsiga ku jiray muddo 25 sano ayaa xabsiga ku jira waa kasta waxa loo siyaadinayay dambigiisa iyo jeelka ayaa loo sii siyaadinayay marka xabsiga ku jira waxa la Azur Jail waxa ku yaala wadanka Brazil ninkan ayaa wuxuu dilay muddada 25 sano 48 qof ayuu dilay surka ayuu ka jaray 48 qof sanadku markuu ahaa 2011 waxa uu dilay hal habeen 5 qof ayuu surka ka gooyay ninkan ayaa wuxuu u dili jiray dadka markuu rabo inuu yacni dadka dilo waxa uu ku sameyn jiray intuu soo qaato birtaan yarta ee ku jiro gaaska looga hortago gubniinka iyo waxyaalahaas ayuu maxaabiista u isleeyahay dil madax uga dhufan jiray dabadeedna waa uu gowrici jiray arrintan ayaa yaab noqotay yacni ninkan markii hore xabsiga waxa loo soo galiyay iyo sida uu noqday muddo 25 sano kadib xabsiga markii la soo galiyay wuxuu iska ahaa wiil yar oo booliska uu soo qabtay waxna ma uusan dilin markaas dambigiisu wax si weyn ma ahayn laakiin muddo 25 sano kadib waxa uu noqday dhiigyacab weyn maxkamadda ayaa mar la soo istaajiyay maxkamaddu markaas waxay asaga ku soo eedeysay in uu dilay 6 qof ilaa 8 qof meelahaas markaas maxkamaddu waxay isleedahay aduu dambiga ninkan si fiican ay soo baarteen dambiga ku ooga waxa loo saaray dad yacni maxkamadda ka shaqeeya in ninkaas dambiga lagu soo oogo tartiib ayuu intuu soo kacay wuxuu yiri anigu ma dilin buu yiri 6 ilaa 8 qof ee waxaan dilay oo aan nafta ka saaro oo waliba hal habeen oo kamid ah 5 qof ka dilay 48 qof maxkamadda arrinta waa la yaabta dhacdadan ayaa waxay ka noqotay yacni wadanka Brazil dhacdo yaab leh iyo wareer leh warbaahinta ayaan wax qorisay maalmihii u dambeeyay ninkan ayaa mar la wareysanayay waxa uu yiri anigu aad ayaan ugu faraxsanahay buu yiri in aan dilay dad lagu qiyaasay 48 qof waliba aad ayay u yar yihiin buu yiri hadii aan awoodi lahaa buu yiri waxaan dili lahaa dad intaas ka badan ninkan ayaa waxa lagu xukumay muddo dhan 217 sano waxaan filayaa waa iska xabsi daa'im weey waxaan u maleynayaa 217 sano qof noolaaliya ma jiray adigu xabsi daa'im baa lagu xukumay 217 sano arrinta yaab kale ayaa waxay tahay ninkan sida xabsiga loo soo galiyay iyo sida xabsiga ku noqday xabsiyada dadka waxa loo soo galiyaa in lagu edbiyo in dhibaato ay dadka ku hayeen mujtamaca ay ku hayeen intii laga soo qabto meeshan lagu xabiso laakiin tuug yar oo waxaday oo dabadeedna xabsi wax ku sameeyay yacni 48 qof uu dilo oo xabsi ku dhex dilo dabcan de wadamada Latin America de xabsiyada iyo kooxaha burcadka iyo kooxaha gaangiska iyo waxyaalahaas oo dhan caan bay ku yihiin iyo daroogada iyo waxyaalahaas oo dhan waa de wadamo xaalkooda iska bariga dhexayay inkastoo waxyaalo badan ay sababeen oo de aad fara badan laakiin arrinta yaab kale waxa weeye ninkan yacni sidoo xabsiga ku dhex noqday weeye ninkan qaabku xabsiga ugu dhex sameysmay 48 qof ayuu dilay wuuna ku faraxsan inuu dilo 48 qof wallahi waa arrin yaab leh saaxiibayaal mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaada kanaalka Yemi Balas haddii aad hore ugu taxneed fadlan like saar haddii aad ku cusub tahayna fadlan like iyo subscribe saar kanaalkan waxaan ku soo gudbin doonaa saaxiibayaal maalin kamid ah asbuuci mid kamid ah dhacdooyinka ugu yaabka badan ee dunida daafeeda ay saxaafadda dabcan ma soo wada qaadan karno dunida daafeeda waxay saxaafaddu ka qortay laakiin kuwa ugu yaabka badan sida arrintan oo kale ayaan soo qaadan doonaa haddii aad hore ugu taxneed fadlan saaxiib like saar muuqaalkan haddii aad hadda ku cusub tahayna fadlan like iyo subscribe saar aad iyo aad u mahadsantihiin guuleysta waa noo asbuuca dambe iyo kulan kale